wasiirka degedaha iyo gaadiidka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Umar Axmed Inuu Sandheere iyo kusimaha guddoomiyaha degmada Beledweyne Mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto ayaa waxa ay shir la yeesheen qaar ka mid ah bulshada degmada Beledweyne. Shirkan ayaa imaanaya kadib degmada Beledweyne markii ay ku dagaalameen laba beelood oo walaalo ah. Shirkani ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa ammaanka iyo nabadda degmada Beledweyne. Wasiirka ayaa maalmihii u dambeeyay joogay degmada Beledweyne waxa uuna ka mid ahaa guddigii madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya u soo xil saaray xasilinta iyo nabad ku soo dabaalida degmada Beledweyne. ugu horeen waxaa goobtaasi ka hadlay kusimaha guddoomiyaha degmada Beledweyne Mudane Maxamed Cabdullaahi Koosto waxa uuna yiri wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la soo booqday. idinkana waxaad maanta aad u imaadeen waxay tahay in wasiirkiina aad soo dhaweysaan aad soo booqataan. waad ku mahadsantihiin booqashada wasiirka. wasiirka ujeedada uu u jeego waxay tahay dhibaatadii ka dhacday degmada Beledweyne oo laga bilaabo koodii bishii afraad ee 2020 degmada Beledweyne wax ceeb ah fool xun oo qof kasta bini'aadin ka danqanaya ka dhacay. marka wasiirka maadaama deegaanka uu ka soo jeedo waxa dhacayna wax fiican aysan ahayn wuxuu ka danqaday dhibaatada deegaankiisa wuxuu u yimid arrinkaas. wasiirka waa joogaa meel uma socdo oo cid kasta heer Beledweyne dhibaato tirsanaysan wuxuu rabaa inuu kaga tacsiyo dhibaatadii ku dhacday wuxuu rabaa markuu waa loo yimid wuxuuna waqti colaadeed xaaladdu aan caadi ahayn wuxuu u yimid in jawiga uu dejiyo amniga Beledweyne sugto nin kale oo qore ka wato iyo boosh wato asna waa dawlad kale marka laba dawladood isma fiirin karaan. waxaan tusaale kaga soo qaadanaynaa dooliyan saxaalad gelinaynaa yaanyurna waa ka daba gelinaynaa habeenkii markay wada bariyaan subaxdii nabad inay ku soo baxaan rabnaa. haddii labadaas nabad laga waayo annaga iyo shacabna wax nabada mana dhex marayso. oo ciidamada qalabka sida cid kastoo rabta waxa waan u helaynaa ma u wey karno. waxaan nahay Soomaali sida loo qarameeyo ciidamada oo maleeshii beeladii annaga naga horeeyay sida kuwii Bakool sida kuwii galmudug dhibaatada Beledweyne ka dhacday inay asal u tahay shaqo la'aan. qofka bani aadamka ah haddii maanta wax shaqo uusan haysanin wuxuu ku mashquulaa naftiisa iyo nafta walaalkiisa. cid kasta ee dhibaataysan waa ognahay deegaanka waxaa ka jira dhibaato badan dhalinyaro badan oo shabaabna aan u tagi karin haddana shaqo aan haysanin ay jirto kuwaas ma sii joogayaan. annagaa u maqan waxaan u kala qaybin doonaa 3 shay. marka koowaad waxaan codsi buuxa aan u dirsanaynaa oo ra'iisul wasaaraheena madaxweynaheena wasiirkeena gaashaandhigga taliyaha ciidanka waxay ka jawaabayaan tirada ay naga qaadayaan ciidamada qalabka xoogga dalka. waxaan ku wareejin doonaa ciidamada xoogga dalka si meesha ay kaga baxdo waxa hadda ka jira Beledweyne. madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Sayid Cabdulcasiis waxaan dhihi karaa madaxweyneyaalka maamul goboleedka sababtoo ah waa madaxweynaha kaliya aan ku faano aan dhahno waa madaxweynaha sharciga ah ee asiga iyo dawladdiisa wax allaalaab aan ka dhaxayn. madaxweynena waxaan leenahay allaga waxaan nahay awlaadaadi khaasatan heer Beledweyne naga warqab. waxaa kaloo jira shirkado Beledweyne degan ee shaqaale ahaan u keensaday ciidamo ajnabi oo ay ka mid yihiin Uganda iyo Kenya. annaga nabad ilaalinaya Uganda ku ogeyn shaqaale kuma ogeyn laakiin shaqaalaha Kenya iyo Uganda laga keenay ma u dul qaadanayno. si qaas waxaan ka garabnaa ra'iisul wasaaraha madaxa xukuumadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha 150 qof oo Kenyaati ah inay ka shaqeyso shirkada Arare annagana haddana dhalinyaradeen ay baahi darteed isu dhameeyaan ma soconayso. sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka degedaha iyo gaadiidka badda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoona ugu horeen ugu tacsiiyay dhammaan dadkii ay dhibaatadu saameysay. marka hore waxaan tacsi u dirayaa dhammaan dadkii dhibaatada ka soo gaartay dhibkii dhacay magaalada Beledweyne ka dhacay qof kasta oo dhibaato soo gaarto waxa la inay Ilaahay raajicoon sabr iyo iimaan aan naga sii intii dhimatay. tacsi kadib waxaan baaq nabadeed u dirayaa dhammaan dadka jooga deegaanka Beledweyne. walaalayaal waxaan leenahay dagaal wiil baa ku dhinta kuma dhasho. nabadaan wada deeqdo nabad aan ku wada noolaano. dadka reer Beledweyne waxaan ka codsanaynaa inay nabad ku baaqaan. aniga waxaan ka mid ahaa guddigii madaxweynaha u soo xil saaray Cabdulcasiis oo dhig joojinta u soo baxay. raggii kale oo saaxiibaday ah waa baxeen anay i reebeen. aniga waxaa la ii reebay bacdana deegaanka aan ka soo jeedo inaan ka warqabo xabad joojinta say noqotay nabadda meeshay marayso
sidee loo horumarin lahaa koonfur galbeed waxay ka gudubtay waxa qabiilka la dhahayo qof kastoo ku nool koonfur galbeed waay oo dadkan walaalaheen kala oo maqan la soo dhaweeyo magaalada lagu soo dhaweeyo suuqda ay furtaan annagana awalba xoogsata ahayn duurkaasaan ka xoogsi jirnay duurkeen aan dib ugu noqonno oo dhagaxayna aan soo qaadanno oo qoryahayna aan soo qaadanno oo ciideena soo qaadanno annagoo nabad ah magaaladan waxaa mas-uul ka ah oo dowladda koonfur galbeed kula xisaabtamaysaa kusimaha guddoomiyaha iyo kaariyaashiisa waxaan ballan qaadaynaa nabaddii aad bilowdeen inaan dhammaystirno sooma ballan qaadayn nabaddii aad ballan qaadeen waa dhammaystirayna anaga ciidamada waxaan u sheegayaa shaqadii laydii dirsaday shaqo kale ha qabanina dadka magaalada dhexgala la shaqeeya labada gacmood ku qabta kii wada dulmina hala qabto kii wanaag wadan hala shaqeeyo nabad aana deeqdo nabadda aan ka wada shaqeyno soo diyaar umanin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu